diirano dadka iyo dalkuba ku nagaadayo khayraad duca qabo kasidiirano alla doorayo hoggaan daacado lagu diirsado halyidiirano dadka iyo dalkuba ku nagaadayo khayraad duca qabo kasidiirano alla doorayo hoggaan daacado lagu diirsado hamigiisuna midku durugsayo xanan dowladnimo midka doonaye ee u daacado khayraad duca qabo allow kula dadaa oo kula darye allow kula dadaa oo kula darye hamigiisuna midku durugsayo xanan dowladnimo midka doonaye ee u daacado khayraad duca qabo allow kula dadaa oo kula darye allow kula dadaa oo kula darye halyigii dadkani muddo doonayo dulli iyo daciif midkan qaadano dasturkiyo sharciga kasi dhowrayo khayraad duca qabo allow kula dadaa oo kula darye halyigii dadkani muddo doonayo dulli iyo daciif midkan qaadano dasturkiyo sharciga kasi dhowrayo khayraad duca qabo allow kula dadaa oo kula darye dowladnimo himiliyo wax qaban midka doonayo khayraad duca qabo hibadii dalkani hore uu lahaa midka raadiye inuu soo cesho higsi dowladnimo himiliyo wax qaban midka doonaye khayraad duca qabo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya Xasan Ali Khayre waxaan leenahay mudane mas'uul mudane wadani mudane siyaasi ku soo dhawow xarunta gaalkacyo xarunta gobolka Mudug aad baan ku soo dhaweynaa haddii aan nahay dhalinyarada shacabka reer Soomaaliyeed ee degan gaalkacyo waxaan kugu soo dhaweynaa sharaftan iyo ciidadan aad baan ku jecelnahay dawladda nabad iyo nolol waxaan leenahay jiro joog waan taageersanahay dawladda nabad iyo nolol dawladda waan taageersanahay sida wanaagsan ay u shaqeynayso waa taageersanahay runaantii waxaan leenahay khayra jiro joog dawladda khayra waxaan leenahay jiro joog runaantii dareenkaygu maanta aad buu u sarreeyaa maadaama aan halkaan kusoo dhaweynay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno kusoo dhaweyno gobolka Mudug gaar ahaan gaalkacyo waxaan sugaynaa insha Allah waa inaan ka qayb qaadano soo dhaweynta si diiran waxaan leeyahay dawladda nabad iyo nolol insha Allah aad iyo aad ugu guulaysanaysaa waxaan galabtii u soo baxay inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraha qaranka Xasan Ali Khayre mudane Xasan Ali Khayre runtii dareenkaygu aad buu u sarreeyaa oo markii ugu horreysay aan la kulmayo ra'iisul wasaare qaran intii noloshayda ahayd marka aad baan ugu soo dhaweynayaa mudane ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre ku soo dhawow magaalada gaalkacyo gobolka Mudug xaruntiisa Puntland farxad ku soo dhawow bulshadaadii iyo shacabkaagii
iyo dadkaad u talinaysid ku soo dhow ayaan leeyahay ra'iisul wasaare. waxaan imid inaan ka qayb qaato soo dhoweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaan ku faraxsanahay in loogu yimaado maanta magaalada Gaalkacyo waxaana bogaadinayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay sida muhiimadda leh oo galmudug iyo arrimaheeda uga shaqeeyay iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si uu mideeyay deegaanada galmudug sidoo nabadda uga wado sidoo horumarka uga wado waxaan u rajaynayaa Puntland sidoo kale iyo qaybtan waddanka hadda aan joogno garoonka Cawaalana wax ka qabto haddaan dhalinyaranahay inaan la kulanno oo soo dhaweyno waan jecelnahay aad iyo aad waxaan ka mid ahay taageerayaasha ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa aad waxaan u faraxsanahay inaan ku soo dhaweynayno magaalada Gaalkacyo qaybteeda waqooyi Gaalkacyo qaybo kala lahan sidii ra'iisul wasaaruhu sheegay waa magaalo qur'a waa magaalo isku degan yahay ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa waxa soo aragtaan waa ra'iisul wasaaraha taageeradiisa annagu waxaan nahay dhalinyarta Gaalkacyo wali ma aanan arag dawlad waxa kale yiraahdo sidaan oo kale ma aanan soo gaarin maanta waxa kale yiraahdo dawlad waxa kale baanboygeedii wadata waxa kale yiraahdo dawladnimo noo muuqata waa qiireysanahay run ahaantii ra'iisul wasaaraha waxaan soo dhawow gacan furan ma kugu soo dhaweynaynaa Gaalkacyo waa idin salaamay inaan idinkugu imaado garoonkii Maxamed Cawaale Liibaan oo ah halyeygii calanka Soomaaliyeed waa maalin taariikhi ah waa ku mahadsantiin shacabka reer Gaalkacyo waxaan uga mahad celinayaa soo dhoweynta diiran ay nagu soo dhoweeyeen aniga iyo wafdigayga waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ayaad mudantiin xalayto ayuu igu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo mar haddii aad Puntland timid waxaad u timid shacabkii ugu dawlad jeclaa dalka Soomaaliya waxaad ku jirtaa gacan wanaagsan labadaydii gacmood ee geestii waqooyi Gaalkacyo nabadba geesiyaal magac dhabogeygii lagu yaqaano Gaalkacyo